Maxkamadda Ciidamada Qalabka Sida ee Soomaaliya ayaa maanta waxa ay xukuno kala duwan ku riday 9 eedeysane oo haweeney ka mid tahay, kuwaasi oo lagu eedeeyay inay ka tirsan yihiin Al-Shabaab. Dhammaan eedeysanayaasha ayaa soo galay gacanta ciidamada amniga 14 bisha saddexaad ee sanaddan 2019. Xafiiska Xeer Ilaalinta Ciidamada Qalabka Sida ayaa isku howlay baarista shabakadan u qaabilsaneyd Al-Shabaab deegaanada cirifka jira ee degmooyinka Yaaqshiid iyo Heliwaa. Waxa ayna maxkamadda ciidamada weydiisteen dhageysiga dacwadda 16 bisha lixaad sanadda 2019, xilligaas oo ay garsoorayaasha go'aamiyeen inuu dhaco fadhigii ugu horeeyay. Guddoonka fadhiga dacwaddan ayaa ugu horreynba u jeediyay eedeysanayaasha eedaha ay soo diyaariyeen xafiiska xeer ilaalinta, waxaana mid kasta fursad loo siiyay inuu ka jawaab celiyo jiritaanka eedda. Xafiiska Xeer Ilaalinta ayaa ka sheekeeyay dhammaan eedeysanayaasha xilliyadii kala duwanaa oo ay Al-Shabaab ku soo qaateen iyo howlaha ay hayeen oo u badnaa tuuridda bambooyinka, handadaadda shacabka degan bariga Muqdisho, iyo dabagalka dhaqdhaqaaqyada xarumaha iyo baraha ciidamada ee magaalada dhexdeeda. Ruun Maxamed Cali, Dalka TV, Muqdisho.